السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحلان جنال كمركز السوداء. مقال كان واحد ربع مانتا إن ندخل وذاقه ويل سوماليا أو متكلا أو سوماليا كودلي إن أفرتي بشان أغسطا إنه كجرنو مقالة بورلاند قبلك أوريغان. هذا شاكدان شاكا أن لسعودي أي أحيد لكن أن سوغيي بل أنت أن حكت هذا oo dhamaystiran aan ka helayo sababta wiilkan uu u dilay wiilka kale ee Soomaaliga wax la leeyahay waa masayr dartii oo xitaa midka wax dilay markii la soo qabtay uu sheegay walow hadda faahfaahin dheeraadana aan arintaasi laga bixin maxkamadda ayaa la soo taagay goorma ayaa dacwadiisa ay bilaabanaysaa boolisku siday ku ogaadeen ninkan Soomaaliga oo dilka u geystay wiilka kale ee Soomaaliga goorma ayaa la soo qabtay arrimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idin la wadaago iyo waliba midka wax dilay oo janaasadii wiilka uu dilay iyo waliba aaskiisii ka qayb galay GoFundMe page loo sameeyana sidoo kale lacag ugu deeqay arrimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore soo dhawaada aan ku bilaabo magaalada Portland ee gobolka Oregon waxa degan Soomaali aad u fara badan waxa jiray wiil dhalinyaro ah oo 41 jir ah oo la yiraahdo Anwar Usman Abduqaadir Ali oo dawada Uber ahaa in la dilay xilli dambe oo ahayd habeenkii 4 bishan Agoosto aynu ku jirno waliba 10 saac iyo bar habeenimo ayaa la dilay wiilkan waxa uu ahaa Uber driver oo gawaarida Uberkaasi taksida loogu shaqeeyo ayuu ku shaqeynayay marka dadka xilliyada habeenkii shaqeeya ayuu ahaa qof ayaa waxa uu soo dhigay airportka dad waxa jira xilliga hore ee subaxdii airportada aado marka schedule ay sameystaan ballan ay qabsadaan marka qofku ballantaas ayuu qofka u tagaa uuna soo qaada markii uu qofkaasi airportka soo dhigay ayuu doonayay in uu qof kale soo qaado marka boolisku baaritaanada ay sameeyeen iyo sida ay ku ogaadeen dilkan qofka geysto ay ku soo qabteen ayaan rabaa inaan idin la wadaago wiilka wax dilay isagana waxa la yiraahdaa Maxamuud Saciid Cali labada familba labada nin laba xaas oo kala duwan ay lahaayeen waliba labada xaas waxa la ii sheegay in isku qabiil yihiin marka aan wareystay dad degan Portland Oregon wayna isyaqiineen oo Masar ayaa laga soo qaado labadan qoys dad saaxiibo ah midka wax dilay iyo midka la dilayaba saaxiibo ay ahaayeen labada xaasna waa ay isyaqiineen marka sidaas darteed midka wax dilayna isaguna waa 42 jir waxaana la yiraahdaa Maxamuud Saciid Cali 4 caruur iyo xaas ayuu lahaa halka sidoo kale midka dhintayna 6 caruur oo midka ugu weyn uu 16 jir yahay iyo xaas uu lahaa marka boolisku baaritaan ayay sameeyeen dilku waxa uu ka dhacay wadada la yiraahdo Southwest Bancroft Street iyo sidoo kalena McAdam Avenue xilli uu doonayay inuu freeway-ga ku biiro 10 saac iyo bar habeenimo ayuuna dilkaasi dhacay markii ay boolisku yimaadeen goobta waxay xaqiijiyeen in ay arkeen qofka gaarigan ku jiray oo amir daboolme waxay isku dayeen inay badbaadiyaan laakiin waxay ogaadeen qofkan inuu meed yahay marka 9 xabadood ayuu ku dhuftay markaas kadib wiilkan gaariga Toyota Avalon oo watay sida aad aragtaan waxa uu kula dhacay dhismahaasi qofku gaarigu marka uu taagan yahay break ayuu hayaa qofku haddii ay nafta ka baxdo break ma haynayo gaariga uu la dhaqaaqay marka dhismahaasi ayuu la galay sida aad aragtaan oo burbur ayaa ka muuqda waa kan boolisku ay ka soo jiidayaan isla markaana gaarigiisa ay towgareynayaan boolisku marka waxay sheegeen in ninka dhintay gaariga ay camera ugu xirnayd isla markaana boolisku gaariga iyo kameradii iyo telefonkiisii dhammaanba waa ay qaateen baaritaan ayay ku sameeyeen kamerada ayayna waxay ka ogaadeen qofka dilka u geystay iyo sidoo kalena qaabka uu dabagalka uu ugu sameeyay boolisku marka sidan ayay soo ogaadeen wiilka Soomaaliga ah marka la dilay habeennimadii Talaadada waxa la aasay Jimcihii oo 7 bisha ahayd waxaana la soo qabtay wiilkan dilaaga ah oo Maxamuud Saciid Cali la yiraahdo 8 bisha oo Sabti ah ayaa la soo qabtay waliba wararku waxay sheegayaan in tacsida wiilka dhintayna uu ka qayb galay midka wax dilay ayaa janaasadii ka qayb galaya masaajidka marka lagu tukanayay aaskiina waa uu ka qayb galay GoFundMe page loo sameeyay oo hadda ilaa 32,000 qoyskiisa loogu ururiyay maadaama wiilka dhintay qofka kaliya qoyska u shaqeynayo ah 6 caruur oo lahaa xitaa lacag ayuu ugu deeqay marka maxkamadii ugu horeysay ayaa la soo taagay 18 bishan oo maalintii Talaadada oo hadda la soo dhaafay ahayd waa kan sawirka markii maxkamadda la soo taagay markay boolisku soo qabteen isagu waxa uu sheegay in uu uga shakiyay ninkan xaaskiisa
waa arinta sida uu sheegaa la yiri markii hore laakiin arintaasi ilaa ay hadda wali wax cadeyna looma hayo maxaa yeelay ninkan wax dilay waxa la leeyahay xaaskiisa waa isku dhaceen oo caruurtiisa isaga haysto xilligaas sabreed ayay kala hayeen oo ma aysan isla joogin sidaas darteed ayaa mararka qaar markii wax u baahato wiilkan dhimanayo ayay wax u dirsan jirtay markii xitaa la hadlayso intay codka ama muuqaalka ka duubto ayay ninkan ay u diri jirtay balse ay ugu sheegto laba ayay noqon kartaa inay dhahayso war aniga ninkan waxba naga ma dhaxeeyaan qof walaalkay markaa wax u baahdo ayaan wax u dirsadaa amaba inay doonaysay inay ka masayrsiiso labadaas mid waa ay noqon kartaa marka boolisku baaritaanka ay sameeyeen waxay ku soo ogaadeen kaameradii ninka dhintay gaarigiisa ku xirnayd in midka wax dilaya oo isaguna gaari SUV ah oo blue ah oo Toyota Highlander oo watay in airportka markii uu dhigay qofka wiilkan dhimanaya 9:43 daqiiqo markaa ahayd 4tii bisha in uu soo dabagalay isla markaana sidoo kale wiilkan dhimanaya waxa uu soo qaatay wadada 205ka oo freewayga kadibna 84ka ayuu qaatay kadibna waxa uu ku bedeshay Interstate 5 markii exitka McAdam uu ka baxay marka light ayaa ku yaala lightkaasi ayuu istaagay markii uu istaagay midkan dilaya waa uu soo dhinac dhigtay daaqada dhinaca darawalka ayuu soo istaagay kadibna 9 xabadood ayuu ku dhuftay waa uu ka dhaqaaqay xitaa boolisku waxay soo ogaadeen in uu marka uu soo istaagay gas station oo la yiraahdo 7-11 markii uu airportka ka soo baxay in xitaa la arkayay isagoo 100 talaabo meel u jirta gaariga uu watay midka wax dilaya uu gaariga ninka uu dilayo uu soo daba istaagay isla markaana uu ilaaleysanayay markii la soo qabtayna waa uu sheegay waa uu qirtay in uu raacay ama dabagal uu ku sameeyay laakiin sababta uu u dilay ninkan ma uusan sheegin ma uusan sii faahfaahin walow dad xog ogaala oo degan Portland Oregon oo aan la xiriiray ay leeyihiin ninkan masayr dartii in uu dilkaasi u geystay ayay u badan tahay markii talaadadii hadda maxkamadda la soo taagay dambi malih ayuu yiri waxana lagu soo ogay laba dacwadood oo ah dil heerkiisu yahay midka labaad iyo inuu hub si sharci darro ah oo u isticmaalay waxana la leeyahay maxkamadiisa kale waxa loo ballamiyay September bisha 9aad 28keeda waa bisha soo socota iyadoo sidoo kalena dawladdu ay qareen u qabatay marka xaaska ninka dhintay ayaa waxay maxkamadda ka sheegtay in uu ninkeedu ahaa qofka kaliya ee qoyska u shaqeynayay isla markaana hadii la sii daayo ninkan dilaaga ah oo odageedii dilay Maxamuud Saciid Cali in nafteeda ay u baqayso sida darteed waa la diiday in wax damaanad ah lagu sii daayo ilaa 28 September maxkamadiisa kala dib loogu soo celinayo xabsiga ayuu ku sii jiri doonaa marka baaritaankaasi ay boolisku sameeyeen welina gaarigiisii boolisku iyaga haysto ninka dhintay oo waliba camera ay ku xirnayd meesha sidoo kale dilku ka dhacay waxa ka agdhawaa dhisme ay ciidamada ICE ay leeyihiin marka kaamarooyin kala duwana halkaasi way ku xirnaayeen dadka agdhawaa goobta waxay leeyihiin dhawaqa risaasta waan maqalnay oo ilaa hadda sida qofkan uu sheegayo isla markaana booliskii u hormaray waxay leeyihiin markii aan u tagnay qofkan oo gaariga ku jira isla markaana dhowr xabadood ay ku taalo waxaan isku daynay inaan badbaadino laakiin ma ay noo suura gelin oo mar hore ayuuba dhintay oo naftu ay ka baxday bal wax yar la daawado. It was like a machine gun, you know, very, very loud. When we located the victim in his vehicle, he was suffering from numerous gunshot wounds. Aad u mahadsantiin asxaabta waxyaabaha ka soo kordha bal marka wiilkaasi Soomaaliga maxkamadda la soo taago bisha soo socotana waan arki doonaa hadii dambi lagu helo iyo hadii kale laakiin dacwad-oogayaashu waxa ay sheegeen in ay hayaan muuqaalo fara badan oo muujinaya ama ku cadeynaya ninkan in isagu uu dilka geystay marka ilaa haddana isagu waxa la leeyahay masayr dartii ayuu arintaasi u sameeyay sida dad degan Portland ay xaqiijiyeen laakiin isagu waa uu qirtay inuu dabagal ku sameeyay ninkan uu dilay laakiin sababta uu u dilay ma uusan cadeynin oo faahfaahin dheeraada ma uusan ka sii bixin aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doonno saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.